duqana calaf baahage haddaad guur dadab gashaan dulqaadiya samir lahow ninkee dubatana ha noqon ayaa lagu oran degdegan ayaa lagu oran dayacan ayaa lagu oran dabshidan ahaw danaheed ku filan ahaw duca qaba asturan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي قالي أهوى السلامي مقعيقة ورحمة هلك آد نجدا ونسان وملاك جنان وحدا ونسان برنامج بنات حواء وبرنامج أن كل يركل ندو مركا إسلام مركان أنكم ارتقادون هواي كان سليمها وحسامين كل يجيب الشدة ما أنتنا وحا مرتئين وقوة عن العلم حسن وأكملتي لها نيشان عين كيكنو مكان هون في كوريشن ما معنا كسور جنالكي waandhawahay sida ay u sheegtay walaashay waxaa halkan lagu dhiirigeliyaa haweenka u baahan qurxinta iyo wanaajinta reerkooda inay maartay qurxiyaan oo ay maartay la tacaamulaan adduunyada waxa ka jira ogaadaan maartay ku soo dhawaadaan leeyahay agab kasta oo u baahan tihiin qurux walba waad heleysaan haddii alla idmo soo dhawaada ما معنا بوامها هاي مركه هوري وكوسو دوينا يا جنالكيga وحاربا يعني إنا إسبرتيد ددك عنب واتوما maxay qabataa noloshaada oo kooban wax yar inaan ogaado waan ku dhawahay raxma canab waxay qabataa oo meeshan u furatay in ganacsiga guud ay bartaan haweenka sida maarta guryaha iyo agabka reerooda ay wax ugu qurxiyaan adduunyada hore u martayna ay maartay la jaan qaadaan ما سنتهاي برنامجkan waxa uu talagalay in haweenku dhiirigelino isla markaana uga wareysano ganacsigooda sidee ku bilaabeen heerarka uu soo maray caqabadihii ay la kulmeen iyo waxyaabihii ku dhiirigeliyay inay ganacsiga bilaabaan weydiinaya fikradda ina meeshan samaysid goorma ay kugu dhalatay والله مركان رحمه wax badan ku sheego qof kasta oo haween inay maaragtay shaqaysato si ay awlaadeeda iyo reerkeeda ay u horumariso waa shay aad u wanaagsan waxa igu dhaliyay markaan arkay dhibaato badan oo wadanka ka jirta iyo qurxin la'aan ka jirta wadanka in maaragtay aan u furno oo ay ka faa'iideystaan sida darteedna ay uga baxaan dhib kasta oo soo wajihi lahaa qoyskeeda waxaan gabdhaha kula talinayaa marka insha Allah inay shaqaystaan fadhiga ka kacaan wixii munaasib ah oo aan reerkooda ku burburayno ma macnab waxaan ku weydiinayaa ganacsiga marka bilaabaysay yani dhaqaale intee la eg ama income intee la eg ku bilaawday yani wax badan ma ku bilaawday mise meel hoose ka soo bilaawday ilaa heerka hadda maraysa soo gaartay ifan uma baahna inaad malaayiin raadiso dollar inaad boqolaal ku raadiso ma baahna waxa way ganacsigu wuxuu u baahan yahay fikir wax yar ayaana wanaagsan inaad markaaga horeba ku bilowdo si aad maaragtay ula qabsato dhibaato kasta oo ka hor timaada kadibna waad u gudbi kartaa wax kasta oo wanaagsan iyo heer aad maaragtay dhaqaale fara badan abuurto intaba ما شاء الله هذا ما سنتهاي ما معنا مجيران يعني عيد كعاوسي أما هذه أداء هان له بنكية لعق دين إكسو قادتي يعني كنعسي مكة بلابيسي مجبتا لنعيك كعاوية إذا كان بلابي وحي عاوية مجيران وحي يربان كبلابي وحي يران إلهي بأي بركيي قف كستا أو مارتي كوتا لجرا إنو قانعسدنا ومباهنا العق بدن وإنه وحير كبلابا وحير كانوا إلهي لا تلسارتو كبعدين إلهي وكو بركينيا ما أنت واركتان ماشان aad u weyn ka badan oo qiimaha badan leh oo baraanjiye badan leh wax maartay iga caawiyo bangiga ma jiraan waxyaadahana ma jiraan ilaahay baa maartay subxaanahu wa ta'aala ayaan la tala saartay isaga ayaan ii barakeeyay ma macna waxaan fadinayaa caqabado ku soo wajahay inta barnaamijkan aad ku jirtay ama ganacsigan aad ku jirtay dhibaatooyin ku soo wajahay hadii jiraan inaad wax inoogu sheegtay dhibaatooyinka caamka ah ee ummadda haysta waxaan ka ahayn oo caqabad igu noqday ma jiraan aad ayaan maartay waxaan u helay dad badan oo maartay ugu dhiirigeliyay oo fikirkan inaan sameeyo aad ugu dhiirigeliyay waana ku mahadsan yihiin
boqolkiiba boqol marka ma jirto inaad lacag malaayiin ka bilowdo hoos ka bilow ilaahayna la tala saaro waad gaaraysaa heerka iyo hamiga aad leedahay ma jiraan waxyaabo aad kula talinaysid dumarka kale ee adiga kula midka ah ee ku haminaya inay ganacsi abuuraan ama jecel inay qoysaskooda horumariyaan hooyooyin far badan oo waxaa jiro yani ku sugan duruufo fara badan waa ognahay wadankeena Soomaaliya burburka kadib yani wuxuu ku baxsanayay ama inta badan horumarkiisa waxaa ka qayb qaadanayay dumar ka qayb qaadanayay oo yani haday ahaan lahayd inay aabayaasha kala qayb qaataan doorkooda oo ah barbaarintii iyo kabitaanka guriga gabdho badan oo sidaas oo kale ay jiro oo ku haminay inay bilaabaan maxaa tala siin lahayd bismillaah waxaan tala siinayaa gabar kasta oo Soomaaliyeed oo awooda inay shaqaysato wax yarba ha haysato waxaan kula talinayaa inay horta fadhiga ka kacaan waxyaabo ninkooda uu raali ka yahay ay sameystaan si ay ubadka u wada korsadaan sababtoo ay tahay xilligan ma jiraan dawlad loo shaqeeyo xafiisyo loo shaqeeyo ma jiraan kala waxa qof walba oo maartay u istaaga inuu awlaadiisa maartay wax u qabsado tacaamulka suuqa uu garan karaa waa inay gabdhuhu fadhi ka kacaan waa inay wax yar ka bilaabaan waa inay wax weyn hamiga aysan siin way gaari doonaan hadii alla idmo gabar kastana waxaan leeyahay soo dhawow meesha aan ka bilaabay hadda sheekadu way dheer tahay meesha aan ka soo bilaabay idin kaga ma sheekayn karo balse maanta alxamdulillah meesha aan joogo waad aragtaan gabar walbana waxaan kula talinayaa inay fadhi ka kacdo shaqaysato awlaadeedana siday u xafidan lahayd ilaa wada aragteen maanta aabe dhaqaaqaayo wuu yar yahay mid yar ilaahay uu gargaare ma ahane marka waxaan leeyahay la garab istaago hana la shaqaysto ma sha Allah aada u naasay adiga mudan mar kale waxaan dumarka Soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa horta xagla laaban waxay tiraa Soomaalidu xoolo lagu ma helo waxaan loo dhibtoonina lagu ma dheefsado haddii aad tiraa guriga ayaan iska joogay waxba qaban maayo waa xagla laaban xoolo kuma yimaadaan wacyiga hadda jirana waad garan kartaan maanta adduunyo waxay maraysaa in la isgarab istaago haddii aan intaas la helin waxa badan doona furiinka iyo dhibaatada soo wajahda qoyska marka waxaan leeyahay sidii looga hortagi lahaa waa in maaragtay wax la qabsado oo la shaqaysto oo maaragtay adduunyada la tacaamulo soo dhawaada nagu maaragtay waxaan idin ka caawin doonaa insha Allah shaqadiina nooc walba ay tahay ku soo dhawaada mar kale waa maasantahay maamacana bay fursado ma jirta dumarka u heysaan yani si uga faa'iideystaan ama yani uga faa'iideynaysid ganacsi qaab ay kala qayb qaadan karaan ama hadii jiraan haween shaqo u abuurteen horta waxa weena wali shaqo uma inaan abuurin balse mabana loo imaanin oo maaragtay warshaqa sidii wax u abuuran lahayn noo bilaaba ama na tusii cidinama yoran laakiin waxaan diyaar u lanahay qof kasta oo talo iyo maartay wax sheegid u baahan inaan waxna u sheegno talana siino waa si fiican ma jiraan meelo saan oo kale ah ay dumar leeyihiin ama dad kale oo xiriir idinka dhexeeyo wada shaqeyn inta badan qaybo badan ayaa horta Muqdisho laga helayaa inta badan gobolada dalka ayaa laga helayaa oo ku dhiirigelinay inay wax qabsadaan oo ay fadhiga ka kacaan oo ay maaragtay noloshooda si maaragtay wanaagsan ay u maareeyaan maamacana waxa ku weydiinayaa ma jiraan caqabado diiday macnaha hooyada ayadoo caruur haysato inay soo baxdo ee banaanka soo shaqeyso ganacsiga oo kale ee bilowdo ninkeedii iyo gurigii waxyaabahaas oo dhan sidee isugu keeni karaya isleedahay waxay isugu keeni karaan way bilaabi kartaa gurigeeda gees ka samaysanaysaa alaabta bay qaadanaysaa maaragtay waxay ku gadanaysaa online wax la yiraahdo si maaragtay uga faa'iideysato iyadoo gurigeedina joogto ninkeedina maaragtay ay u joogto guriga oo maaragtay reerka ay haysato ma ahan inay maaragtay intay dibadaha wareegto ama laamiyada tagto inay guri ka soo kireysato maaha waa inay gurigeeda xitaa qayb kamid ah wax ka dhigan kartaa online kana ku gadan karto si gabdhaha asxaabteeda ugu yimaadaan oo ay maaragtay uga kaabaan nolosheedii marka qofku uma baahna oo kaliya inuu meel weyn intuu kireysto oo lacag badan ku bixiyo gurigii ka baxo caruurta ka baxo reerkiina hadhowti maaragtay dhibaato uga timaado gurigeeda ayay ka samaysan kartaa kuna faa'iidi kartaa ilaahayna maaragtay u tala saarato
marka waxaan leeyahay haweenka ma aha inaad banaanka kaliya aadaan online wax la yiraahdo hadda maartay yimid oo maartay horumar ayaa maartay sameysmay marka ka faa'iideysta in badan gabdho way jiraan hadda wax badan kula talinay oo hadda maartay barnaamijkaas abuurtay oo guryahooda wax ku sameystaan ما شاء الله ما معنا بآذى وما صنتها وتاجمها العلماء قرص بدن عيسو دبيتي حارتين هيا كلها إلي كافة إيدين وحاف الله هاي شكرا مكتلة جزاك الله خير إيدين كان آذى وما صنتين فيديو إلى دمات هذه أسوق جاتين وإذن تاجمها العلماء داوشدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رحمة سودوا أدينا سيدو كله وان كاغا مهد علينay fiidiyowgan iyo arintan aad nagala qayb gashay waa Carwo Mataan Home Decoration soo dhawaada waa dhanay aad